haddii dabaq aad degan tahay dhinacaad joogtid maahane dhinaca kale uu ka dumo ma sii deganaan lahayd habeenno kale ma sii seexan lahayd maalmo kale ma sii dhex joogi lahayd maya waad ka guuri lahayd haddaan ku weydiiyo maxaad u guuraysaa meesha dabaqa aad ka joogtid weli saamayn maysan ku yeelan waa dhisan yahay wax walba waa caadi dhinaca kale uu ka dumay keliya xaggeed u cararaysaa waxaad oranaysaa dabaqu waa ishayey markii hore hadduu dhinaca ka dumay waxaa macquula qaybtanna intay doontaba ha taagnaatay iyaduna inay dunto waxaana dhici karta anigoo dhex degan inay qaybtani la dunto marka intaan hadda badbaadada ahay aan ka guuro waa sida macquulka ee muuqata naftaada marka dhibka haysta maxay tahay dhibka ku haystaa wuxuu yahay aaminaad baadan qabin waayo qayb ka mid ah ayaa duntay dabaqii qaybtan kale ee aad degan tahayna waxaa kuu muuqata inay macquul tahay inuu iyaduna dumi karto si naftaadu ay u badbaado waa inaad meeshan ka baxdid marka naftaadu kalsooni waxay ku qabtaa bannaanka inaad u baxdid naftaadu kalsooni waxay ku qabtaa meel kale inay degto dabaqan kalsoonidii aad ku qabtay way kaa dhammaatay noloshaada dhammaanteed markaa fiirisidna waa sidaas oo kale naftaadu inta badan way isdhiibaysaa marka ay aragto qayb noloshaada ka mid ihi inay duntay waxay doonto ha noqoto waxbarashadaadii oo dayacantay ha noqoto wakhtigaagoo dayacmaya ha noqoto lacagtaadoo dayacmaysa ha noqoto dhinac kasta noloshaada markaad eegtid hadday qaybi dunto qaybta kalena saamayn bay ku leedahay waxaad ogaataa naftaadu waxa ay maalin walba bilowdo haddaysan dhammaynin oo wix iyadoo qabyaa ay ka tegayso ogow kalsoonidaadu maalinba maalinta ka dambaysa intii hore way ka sii yaraanaysaa inaad guul daraysataa ceeb maaha laakiin inaad bilaabi weydaa ceeb ah markaad garan kari weydo sidii noloshaada aad u maarayn lahayd waayo inta badan waxay yidhahdaan dadku maaraynta wakhtiga waxba kama bedeli karno laakiin innagu waxaynu maarayn karnaa wakhtigaa gudihiisa waxa xubnaheennu ay qabanayaan waxa maskaxdeennu ay ka fakarayso shaqada aynu samaynayno ayaynu maarayn karnaa inta laguu dhiibay oo adigu mas-uulkaad ka tahay adduunkan ilaan xor baad ku tahay waa waxa aad maalin walba qabanaysid nolosha dhan ee aad maanta raadinaysaa waxay ku jirtaa waxa adigu maalin kasta aad qabatid haddii aad maalin kasta waxaad qabanaysaa wax tayale ay yihiin noloshaadu tayay lahaanaysaa waad guul gaaraysaa waxa aad tiigsanaysidna maalin ay noqotaba waa kuu rumoobayaan laakiin marka naftaadu ay isdhigato oo in badanoo dadka ka mid a maanta waa wada mashquul haddii aad naf ahaantaada si fiican isu fiirisid mashquul baa tahay laakiin maxaad mashquul ku tahay qof aan mashquul ahayn kolley ma jiro qof kastaba waa mashquul qofna wixii noloshiisa kharibi lahaa buu mashquul ku yahay maalin walba qofna naftiisa wixii dhisi lahaa buu maalin kasta mashquul ku yahay adigu kee tahay labadan haddii aroor walba aad kacdid ood shaqo aadid $2 soo shaqaysid 30 bari markay kuu dhammaato waxaad haysataa $60 haddii laakiin ka waran aan maalinna tago maalinna shaqada gooyo dabcan lacagtii inta way ka yaranaysaa $60 $30 bay isu rogaysaa haddii ka waran aan 3 bari ilaa 4 bari marka aan shaqo la'aan noqdo aan haddana shaqo dib ugu laabto lacagtii intaa way ka sii yaranaysaa $30 xataa la arki mayo ujeedadan tusaalaan kuu siinaya waxay tahay nolosha sideeda guud ahaaneed wax aan la joogtayn natiijo wanaagsan iyo guul lagama gaaro in badan maanta waxay la dhib qabaan oo waxba la xaqiijin kari laayihiin waa joogtayntii baa ka maqan wixii ma joogtayn karo qofku mar telefoonkaad ku mashquulay tusaalahaan waxaad rabtaa inaad wax akhrisatid telefoonkaagii baa intaasoo notification baa ku soo dhacaya waxaad fiirinaysaa talow muxuu hebel yiri heblaaye maxay tiri talow maxaa la soo dhigay maxaa laga hadlayaa telefoonkaagu waa waxa ugu weyn ee noloshaada kharibi kara wuxuuna ka mid noqon karaa waxyaabaha aaladaha aynu isticmaalno kuwooda ugu waaweyn noloshaada horumar aad ku gaari kartid isweydii tarbiyaynta naftaada iyo shallaytada keebaa culus waxaan ognahay shallaytadu inay kharaar tahay wadadeedu waa mugdi wadadeedu waa foolxun tahay wadadeedu way adag tahay qof kastoo ina ka mid ah wuxuun baynu nolosha ka shallaysanahay maanta waxay doonto ha noqoto ama salaad xumo ku haysata ha noqoto ama qur'aankoodan xiriir la lahayn ha noqoto ama rabbigaadan si fiican ugu xirnayn ha noqoto ama dhaqaale xumo ku haysata oo naftaada adoo shaqaysan kara aad isdayacday ha noqoto dhinac walba waqtigaaga ha noqoto caafimaadkaaga ha noqoto dhalinyaronimadaada ha noqoto xoogaaga ha noqoto dhinac walba wuxuun baa nolosha ka shallaysanahay wuxuun baa shallayta ka dareemaynaa saasoo ay tahay waxaynu u badannahay badankeen inaynu shallaytada kharaar qaadanno waxa ina la culus inaynu nafteenna tarbiyadayno naftaadu markaysan tarbiyadaysnayn meel walba iska aadaysa wax walbay samaynaysaa waxay doontay cunaysaa waxay doontay ku hadlaysaa waxay doontay dhagaysanaysaa waxba ma kala jeclaanayso qofku markuusan wax kala jeclayn nolosha tan silic buu ku noolaanayaa waxaa laga yaabaa silica meeshan aan ka hadlay inaad u qaadateed qof darbiya jiifa oo wuxuu cuno aan haysan oo meel u seexda aan lahayn oo dhar fiican u gashada aan qabin maya waxaan ka hadlayaa adoo maanta meelaad seexatid haysatid
adoo dhar fiican maanta gashan adoo guri cuntaad ka cuntid uu jiro hooyo aabba ay ku nool yihiin iyaguna ay ku daryeelayaan inta badan markaa dhalinyaro tahay way kugu adag tahay inaad waxaan dhan fahantid waxa ka hortaaganna wax kale maahan waayo dhinaca madadaalada uun baa ku shidan dhalinyarada badankoodu waxa nolosha ay wax la qabsan la yihiin waa fududaysi wax walba way iska sahladeen oo bari baan qabsan doonaa bari baan yeeli doonaa laakiin ogow maalin waxa jirta albaabka lagu soo garaaci doono albaabkii markaad furtidna waxa taagan 100 waxyaabood 100ka waxyaaboodna mas'uuliyadoodu kulli adigay ku saarantahay mid walba gurigu soo galaya maalinba mid baa soo xiroonaya maalinba mid baa ku soo galaya mid walba wuxuu ka rabaa inaad dhar u gelisid mid walba wuxuu ka rabaa inaad qoodisid mid walba wuxuu ka rabaa meel iyo hooy uu seexday inaad siisid tan ujeedadan uga danlaya ama hadalkan micnihiisu wuxuu yahay nolosha markasta oo aad kor u kacdidba intay doonto ha noqoto 10 sano 20 sano sanad 3 waxay doonto ha noqoto waa kale oo cusub oo waxa jira kugu bariya oo ah mas'uuliyad ku saaran markaasa maalinba maalinta ka dambaysa baashaalka balaayadiisu ku muuqanaysa hana noqon sida dadka qaar gacanna waxbay ku dhisaan gacanna way ku dumiyaan nidaam bay degsadaan qorshay qortaan go'aan bay gaaraan ballan bay nafta ka qaadaan laakiin waagu markuu u bariyo cirku shalay daruura ma lahayn isagoo buluug ah buu muuqday laakiin saaka daruura saaran caajis buu dareemayaa waxaan iska daa hadhow samee maskaxdiisa dhiiranaantii iyo fayoobidii ay qabtay iyo sidii fasiixa ahayd ee xalay wuxuu arkaysay waxba ma aragto midda ugu weyn ugu muhiimsan waxay tahay inaad fahantiin maxay tahay horta mushkiladan iyo hortaagan ee aan waxba la qaban lahayn maxay tahay seetooyinkan igu xirxiran xargahan dib ii haya ee la dhaqaaqi lahayn haddii gunta mushkiladda aad fahantid noloshaada xalkeeda wad haysaa waayo waxa laga yaabaa hadda inaad tiraahdo niyo mushkiladda ay haysataa waa lacag la'aan laakiin isweydiintu waxay tahay lacagta inaad horta raadisid inaad lacag heshid inaad samaysid maxaa ka hortaagan haddii habeenkii 2 ama 3 telefishin ama telefoon ku gaartid way adkaanaysaa goor hore subaxii inaad kacdid haddaadan subaxii goor hore kicinna way adkaanaysaa inaad shaqo raadsatid haddii aadan shaqo helinna way adkaanaysaa inay lacag ku soo gasho haddaysan lacag ku soo gelinna noloshaada silic iyo dacdarra dareemaysa waayo mas'uuliyadii adiga kaliya naftaada ku saarnayd baa dayacan biilashaadii ma bixin karaysid meeshan marka ujeedadan uga danlay waxay tahay waa sidii dabaqii dumay oo kale way isku xiran tahay haddii naftaada aad fahantid goor hore inaad seexataa micnaheedu waa goor hore inaad kacdid goor hore haddii aad kacdidna in badan oo dadka kamida waad ka horumaraysaa waayo inta badan waxa keena dadku inay dib u dhac weyn ku yimaado waayo habeenkii loogu talagalay inay seexdaan oo jirkoodu uu nasto oo tabartii iyo enerjiga loogu talagalay inuu ka qaato dhammaan waa dayacan yahay tana keenaysa inaad subaxii kici kari weydo tana keenaysa focuskaagu inuu xataa ama diiradaadu inay xataa toosnaan weydo waayo habeenkii oo dhan waa dhafraysaa inaad marka goor hore seexataa micnaheedu waa goor hore aad kacaysaa inta badanna waxa dadka dhibaatadu ka haysato oo focuskoodu uu la lumo maalintii waa markuu waagu u bariyo qofku wuxuu isweydiiyaa maxaan qabtaa laakiin mid ogow maalin walba gabagabadeeda qofku waxyaabo badan buu isweydiinayaa wuxuu arkayaa waqtigiisa maanta macna darro inuu ku soo baxay wax faa'iido leh inuusan soo qabanin especially waliba habeenkii markuu qofku joodariga tago waa tan keenta dadku inay iska mashquuliyaan bay rabaan fikiradan telefoon bay iska galayaan waxbay iska daawanayaan waayo naftay rabaan inay ka mashquuliyaan waxan ay dareemayso tan weeye tan keenta marka inuu marka qaarkood qofku dhafar habeenkii oo dhan uu iska soo jeedo waaga dambe marka uu u bariyo waa jiifa duhurkii marka uu gaaro oo uu soo kaco wuxuu dareemayaa shalayto wuxuu dareemayaa ciil haddana wuxuu leeyahay ruuxani waa iska nololaan iska baashaalayga horu u soconaya marka tan waxay keenaysaa marka in aad weligaa ka kabsan weydo dhaawacyadan adigu nafahaantaada aad isu geysanaysid haddaba intaadan habeenkii seexan wax walba qor waayo maalinta aad gabagabadeeda joogtid maskaxdaadu waa fasiix wax badan oo maanta soo khasaarisay bay aragtaa shalaytay dareemaysaa ciil bay dareemaysaa inay wax noqotay rabtaa markaas ugu wanaagsan wax qor waagu markuu ku bariyo isma weydiinaysid maxaan qabtaa waayo shalaytooyinkii shalay aad qortay baa meel ku yaala wixii shalay aad ka shalaysanayd bad maanta bilowgeedii adoo maskaxdaadu xoog badan ay leedahay oo fasiix ay tahay oo energy badan uu ku jiro waaga quruxda badan ee ku bariyay maalinta waxaad ku wajahaysaa awood xoog wad dhaqaaqaysaa waxna wad qabanaysaa wadna raadinaysaa hatta haddii wadooyin aysan ku muuqan ay wax kuugu hagaagi karaan maanta iyadoo ay saas tahay baad haddana dhaqaaqaysaa ogow adiga dhaqaaqa ku saaran inay kuu suura gasho in aad heshid ilaahay subxaanahu wa tacaala bay gacantiisa ku jirtaa qofka tan ku socda hubaal noloshiisu haddii sanad gudaheeda uu sidaa ku socdo inay isbedelaysa shaki kuma jiro